السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام شرف أي تاي مانتي إن هرتين سو استاغو بدنا قدومي بدنا رئيس الوزراء أنيقو سو قد بنية شعبك مقالة مقدشة كنول عد كودة أنا أكو هدلايا inaan hortiina soo istaago sharafay ii tahay aadna waan ugu faraxsanahay runtii shacabka ayagaa nala soo xiriiray shacabka ku nool gobolka Banaadir ayagaa nala soo xiriiray ayagaa codsaday in xafladan mahadcelinta la qabto waxaan u sheegay xaalada adag inay jiraan xilkii xaflad lagu la wareegay waa qabanay laakiin aan shaqaynaa niri marka waxay yiraahdeen lacagteen anaga haysana xafladda anaga dhiganayna waxaan rabnaa madaxda inaad noogu yeerto hortaadana aan uga mahadcelino waxaa kale oo xasuus mudan mahadcelintu kuma saabsanayn kaliya magacaabista aniga madaxda ay magacawday waxay ku saabsaneed sida ay dadka halkan fadhiya oo codsigaas ii soo gudbiyey sida ay ii sheegeen dhammaan madaxda la magacaabay 22 Juulaay aniga iyo madaxda ciidamada ah sidaas ayay ku saabsanayd ayagaa fadhiya oo waxaan anigu iska damco ma sheegayo ayagaa inta ii sheegayna sidaas sidaa darteed dadka rabitaankooda ay xafladaan ku timid kuma imaanin maamulka gobolka Banaadir rabitaankiisa laakiin waxaa ka go'an maamulka gobolka Banaadir rabitaanka shacabkooda inay mar walba ku adeegaan ayaa ka go'an mudane gudoomiye mudane ra'iisul wasaare mudanayaal waxaa naga go'an annagoo kaashanayna shacabka gobolka Banaadir iyo madaxdana magacawday iyo kuwa nala magacaabay iyo dhammaan mas'uuliyiinta dawladda inaan magaaladan ka dhigno ayaa naga go'an magaalo bilic leh nadiif ah amni ah insha Allah ta'ala runtii dadka Soomaaliyeed ee magaaladan ku nool waa dad aad iyo aad dulqaad u leh wax badan soo joogay maantay garanaya waxa u roon iyo waxa u daran taas ayaa qayb weyn ka qaadanaysa gacan nagu siinaysa wax badan oo ay tahay in la qabto in la qaban doono taas ayaan gacan weyn nagu siinaysa insha Allah anagoo ka faa'iideysanayna bisaylkooda iyo waayo aragnimada dadkaanu ay leeyihiin iyo waxyaabihii ay soo mareen ayaan haddii alla idmo hor kici doonaa gaarsiina doonaa magaaladan waxa ay mudan tahay ma rabo inaan hadal badan halkan ka jeediyo waxaan rabaa inaan hadaladeyda halkaas ku gunaanado balse waxaan rabaa inaan ka raali geliyo mas'uuliyiinta iyo guud ahaan shacabka ka soo qayb galay munaasabadan dibdhaca iyo jactada la jactaday iyo dhammaan waxyaabaha aan munaasabka ahayn ee maantay rabitaankooda ahaa xafladan inay qabsoonto yani ka soo baxay sababtoo ah howlo badan oo dawladda u yaalay oo jiray oo qaarkood ra'iisul wasaare uu nooga soo tegay dartood ayaa dibdhacaas ku yimid waliba waxaan rabnay inaan aad u soo gaabino
laakiin rabitaanka dadkan oo weliba sii raba inay sii joogaan darteed ayay ku dhacday marka intaasaan rabay inaan idhaahdo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu